aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay master xasan godax oo si weyn iigu soo dhaweeyey. waxaan filayaa naxitaankaad ka naxaysid dadkaaga halka ku nool. aad baad u mahadsan tahay. bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan waad salaamantihiin. sida saaxiibkay idin sheegay, infact waxay igu kalifay inaan soo galo oon idinla hadlo waxa weeye xaaladaha adag ee ka taagan United States of America. xaaladahan horey way u dhici jireen, so many times we have seen so and so. marka waa inaad ogaataa meesha aad joogtid waa adduunyo, everything it can be happen. laakiin maxaa loo baahan yahay? You have to know who you are. haddii kalsoonida ay kaa lunto, looting, fire, rabsho, waxaas markaa samaysid waxaa lasii xaqiiqsanaya weli inaad down tahay, daciif baad iska dhigaysaa. dhib waa dhaca, sharci baa jiro. waddankaad ku nooshihiin, khaasatan Soomaalidan la hadlaya, waddankaad ku nooshihiin waa United States of America, waa waddan sharci ka jiro. wax walbana way dhacayaan. ninkan cad wax samaynay waa cuqdad uu qabo, laakiin cuqdadii haddaad cuqdad ku bedeshid, adigii baa dhulkiis dhigaya inaad tusisid not different at all. dadku ilma nabi aadan waxba kuma kala duwano. karti iyo horumar iyo allah ku xinaashiisun baa lagu kala dheeryahay. ma garatay waxa ay sameeyeen waan aragnay. wuxuu u sameeyey waa dabeecad xumo iyo xasidnimo iyo dhib ku jiro. laakiin taas waxaan ku ballan qaadaynaa in wax walba aan sharciga marsiino. soo ma garan Donald Trump iyo adinku waa u simantiin waddankaas. waddanka shalay adigoo rafaadsan baahan ku qaabilay abaalkiisiin ma gudi kartid. ilma nabi aadan ummaddaad la nooshiina abaalkooda inaad garataan waay. soo ma garan maxay le haddaad baxdid oo dibadda u dhooftid, bring your passport haddii lagu dhaho United States baa la garaa, you are American baa tahay. marka Amerikaankaad la nooshahay garo inaad walaala tihiin, wax kasta ay yihiin. tan kale Amerikaanka oo dhan baan la hadlayaa. dee waxaan filayay Maraykanku inuu super power yahay oo dunida koowaad u yahay oo the richest country in the world u yahay. waxa uu dhaqmayaa si aan dunida saddexaad u dhaqmin. xaaladda ka dhacaysa waa xaalad aad iyo aad cajaa'ib ah. booliiska anshaxooda aad buu xun yahay. maxaa yeelay ninka booliiska booliis u yahay waardiinaya waa dadkii shacabka. qofka shacabka haddii ka cararo ama uu ka baqayo ninka askariga ah, waxaa weeye waxay ku tusinaysaa in xaaladdu aad iyo aad khatar u tahay. marka alcumuum waxaan kusoo gabagabaynayaa, anigu president of the world baan nahay. fi ay shay wax kastoo caalamkan ka dhacay mas-uuliyad baa iga saaran. ilaahay idinkiisa, ilaahay hortiisaan idinku dhacday. waxaan ku ballan qaadaynaa wax kasta siday yihiin cadaaladda inaan u marsiino. ha u malayn Donald Trump iyo cid kale inaad ka sugaysid. afartaas askar police waxay sameeyeen waan aragnay, waan la xisaabtamaynaa. waxa ay mudan yihiin baan marsiinaynaa. ha u malayn wiilkii Soomaaliga askariga ee hadda kor la xiri jiray in xumayn darteeda loo xiray. wax walba sharciga isbeelaya. soo ma garan laakiin ogaada, anshaxu kuma dhigayo, diintaada ma ku siinaysa inaad looting samaysid. dadnimadaada iyo anshaxaadii sinjiyadaadii dambe ma qabta sida wixii aad ka soo carartay aad meesha ugu aad macnaha ka soo carartay dhibaatadaad ka soo carartay inaad meesha aad ka samaysid. waa waxa aad iyo aad macnaha wax walba historical taariikh bay leeyihiin, way galayaan. la qaybsada dadkaad la nooshiin. isku daya White House inaad wax ka noqotaan. isku daya inaad community-ga wax ka noqotaan. isku daya inaad dadnimadiina cirkaa geysaan. Maraykankana dadka cadaan iyo madow dadku waa simaya. ilma nabi aadan waay, kulli waa la wada simaya. sharcigana ha loo wada hogaansamo insha Allah taala. si toos baan idinla soo hadli doonaa haddii la yiraahdo. khayr baan idin rajaa. assalaamu calaykum.